السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب شرفت لك سود وذاك لكن عبد الغني وفشال dadku cusubtay kan ka subscribe saar sabtoo dhiirigelin baa naga noqotay maanta waxaanu ku hadli doonaa malahaaga hagaaji malaha alle ka filaysa hagaaji malaha guusha ka haysata hagaaji fikirka guusha ka haysata hagaaji Soomaaliya deynanay amba dadkii intiisa badan malahooda waxa ka dhigan malaxun malahooda waxay u maleeyaan aday waxa qabtaan day shaqo qabtaan aday arrin qabtaan day wax ku dhaqaaqan hadday ku dhaqaaqan shaqo maalmoodkooda waxay ka maleeysan inay waxan uga soo bixi doonto hadday codsi dirsadaan tusaalahan waxay u maleeyaan inay waxay fishaan inay codsigaas wax uga soo baxo laakiin adigu noqo ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala codsi fiican mala fiican ka maleysta sababtoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofkii adoonkiigu wuxuu uga fisho ayuu leeyahay haduu khayr iga maleysto khayr uu leeyahay haduu shar iga maleysto shar uu leeyahay marka adigu noqo qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax fiican ka maleysta qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku xira qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raaliye adigu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala noqo qof malaha dhan malahu waa hal mid malaha ka raadi dhinac wanaagsan ka malaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raadi adigu kuusha shamee saco hamigaaga horumari yaana caqabadu nolosha caqabadihiidu yaana ku saameyn dadaalkaaga samee laakiin aka baqin guushaada ka baqin natiijadaada ka baqin waxa ku soo bixi doona hadhow resultiga hadhow heli doonta ka baqin horu saco hamigaaga sarow qaad himilada sarow qaad guushu ma dhamaato guushaada kolba talaab step qaad malaha gana hagaaji